أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستاذ إسماعيل halkaad nala socodna waa samaan cadini JK haddii aad kanaalka cusub tahay subscribe saar haddii aad horan la joogtid noog maasan tahay la joogaaga maantan waxaan idin soo diyaarinaa cashir aad iyo aad u qiimo badan ah oo su'aalo iyo jawaabo diini ah haddana waxaan gudagelaynaa cashirkeeni question and answers about religion. Who is author of the Quran? The author of the Quran is Almighty Allah. How many chapters does the glorious Quran contains? The Quran contains 114 chapters. Who is called companion of the Prophet Muhammad, peace be upon him? A companion is one who saw the Prophet Muhammad, peace be upon him, and believed in him and did as Muslim. Question and answers. Su'aalo iyo jawaabo about ku saabsan religion diin. Who is author of the Quran? Waa kuma qoraaga ee Qur'aanka. Author waa qoraa. The author of the Quran, qoraaga Qur'aanka is Almighty Allah, waa Allah sareeyay. How many chapters meeqo cutub ah ama suurad ah does the glorious Quran contain? Ay ku kooban yahay Qur'aanka mudunaysan. The Quran contains wuxuu ku kooban yahay 114 chapters 114 oo cutub ah ama suurad. Who is called kuma lagu yeeraa companion of the Prophet Muhammad, peace be upon him? Saxaabigii nabiga yaa lagu yeeraa. A companion saxaabi is one waa mid who saw kaasoo arkay the Prophet Muhammad, Nabi Muhammad, peace be upon him, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, and believed oona ruway in him isaga, and did oona dhintay as Muslim isagoo Muslim ah. Qofkii nabiga rumeeyo oo haddana dhinta usoo Muslim ah, kaas ayaa la yidhaahdaa saxaabi. halkaas ayuu cashirkeen maanta noogu og yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.